shalay ilaa habeenkii xalay waxaa baraha bulshada la isla dhexmarayay inuu magaalada berbera ku sugan yahay suxufi fidiya diinta kiristaanka isla markaana kitaabka Bible-ka u bedela af Soomaali oo dadka u qaybiya waxaana arrinkaasi sheegay gudida arrimaha gudaha ee golaha guurtida Soomaaliland oo maalinkii shalay warbixin siiyay qaar kamid ah warbaahinta magaalada Hargeysa iyagoona sheegay in isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil ay ka soo xigteen warkaasi isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil Sheekh Maxamed Axmed Xuseen oo aan maanta xafiiskiisa ku booqanay ayaa si cad u bayaamiyay warkaasi inaanay waxba ka jirin isla markaana ninkaasi ay sheegayaan gudida golaha guurtida ee arrimaha guduhu aanu ahayn suxufi reer Berbera balse uu ahaa nin ka soo jeeda dalka Mareykanka isla markaana dalxiis ahaan ku yimi gudaha Soomaaliland iyo magaalada Berbera kaasi oo fidinayay diinta kiristaanka isla markaana qaybinayay buugaag ay ku qoran tahay Kitaabul Quddus waxaanu sheegay suduwo arrintaasi inay si faqaldan u gudbiyeen xubnaha golaha guurtida arrinkaasi ka hadlayay Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin summa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam maanta way taariikhdu tahay 24 bisha taariikhda miilaadiga bisha 6 2019 24keedii taariikhda hijriguna ay tahay 12 bishawaal sanada 1440 halkan joogno wax xafiiska wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saaxil waxa halkan uu soo booqday suxufiyiinta ka howlgala gobolka Saaxil iyagoo wax naga weydiiyay arrintii shalayto meediyaha ama warbaahinta la isla dhexmarayay ay sii daayeen golaha guurtida ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland warbixinadkooda ku dareen hawsha hadii yar aan ka sheego in halka horteeda waxa yaala waa buug waxa dushiisa ku yaala kitaabka quduuska ah waa Bible-kii oo af Soomaali lagu turjumay in kitaabka waxa qaybiyay nin u dhashay sida la sheegay ee wasaaradda arrimaha gudaha ay cadeysay in maamulka gobolka Saaxil waliba in Mareykanka waxaan wadanka ku soo galay ganacsade hawsha muddo sanado uu ninkaasi joogay magaalada Berbera sanad ku dhow aniga iyo xogayaha gobolka Saaxil ee maamulka gobolka ayaa muddo dabagal ku haynay waxaan naga qayb galay khayr Allah siiyay qaar kamid ah ciidanka qaranka Soomaaliland oo hawsha nala fududeeyay waxaan ku guuleysanay inaanu inkastoo la sheegay inuu buugaag badan qaybiyay say dadka qaar noo sheegan wali laakiin aan xogti rasmiyeed ku daba jiro inuu buugaag badan qaybiyay kaasi aan ku guuleysanay marka inaanu qabanno marka waxa dhacday muddo imika bil ka hor hadii aan khaldanayn golaha guurtida Soomaaliland in xogaal noqoshada dalka markii ay ku marayeen gobolada dalka gobolka Saaxil qaybtii timi ayaa maalintii kitaabka buuga ay nagu wareejisay maamulka gobolku nagu wareejeen maadaama aanu nahay wasaaradii u qaabilsanid wadanka wanaag farista iyo xumaan reebista ayay deedna yiraahdeen waxaan doonaa warbixin naga san buuga golaha guurtidu warbixinta maalinta waanu siinay waxaan uga waranay buuga iyo sifaha oo wax weyn nagu soo galay iyo saan ku helay marka halka wax ka khaldan yahay wax weeye wariyaasha gobolka Saaxil taabatay marka xaqada laga hadlo ilaa shil soo weydiinay ninku suxufi baha ninku ma ahay suxufi Somalilanderna ma ahay Soomaalina ma ahay nin muslim waxa ninki ki buuga kristanka afidinaya waxa waana Bible-ka oo Soomaali ku turjuman dhalashadiisuna Mareykan bay isla sheegay sida ay sheegeen maamulka gobolka sheegay ninkaas inuu wadanka ka baxay wadanka laga saaray kadib baan anagu waxa weeyaan hawsha markaan buuga helay intii kalena waan ku daba jiraa kulay rag baan la shaqeynayay khayr Allah siiyo kulay inahaas ayuun baan intii shalay ka oranayaa de waxay weydiinaysaana waa fali tafadal gudida arrimaha bulshada ninka gudoomiye oo ay gurta u sheegay inaad u sheegtay suxufi Berbera degan inuu fidinayay diinta kiristaanka buugaag Bible oo turjumay arrintaasi aaday baraha bulshada iyo xalay loo hadlayay maxaad ku kala garanaysaa aad sheegaysaa ninkaasi inaanu ahayn nin suxufi Berbera waxa weeyaan waan ku arkay qudhaydu wax baraha bulshada oo waan ka arkay Facebook-ga fariimo badan oo la iga soo diray oo la yiraahdo wasaaradda diinta iyo awqaafta warka sheegay ninkaasi ma ahayn suxufi waxa weeyaan in cadeyntiisa waxaan ku cadeynanaa waxa hadda ka hor u yeeray muddo imika laga joogo dhowr bilood maamulka gobolka u yeeray waraysi bay la yeesheen abku wuxuu yiri waxaan ay ganacsade milixii waxban ka shaqeynaya laakiin wali hawshu ma bilaabin ninkaasina ma ahayn suxufi waxa la weydiin karaa de wasaaradda ruqsadda oo wadanka uu soo galay siisay wasaaradda maamulka gobolka joog marka ninkaasi ma ahayn suxufi Soomaaliland iyo caalamkuna waxa uu sheeganaa warka baxay ninkaas suxufi ma ahayn Somalilanderna ma ahayn way isudu markii hawshan oo dhacday ya ogaateen maxaa si jiraad u qaban weydin inaad qabateen kitaab Bible oo Soomaali lagu turjumay oo muddo u sheeg weydin inta imika yani ay golaha guurtidu warbixinaasi si dawladda u soo baxday
horta waxa weeyaan waa su'aal wanaagsan way hawsha marka aanay ku dhamaystirmin aad ku daba jirto qayb ka mid ka maqan tahay marka aad baahiso ee aad soo bandhigto cid kasta oo marka hawsha ay kaaga jirtay waxa weey daboolka laga saaraya tan maalintii ay qolada gobolku nagu wareejinayeen ee qolada guurtu ogaatay sidaas ay deedna aan warbixinta ku siinay wasiirkayga waan ogeysay wasiirku wuxuu leeyahay la shukr cala waajib waa shaqadaadii aad u igmanayd waanad ku mahadsan tahay marka sidaas ayaanu ku haynay wax weey buuga tagala guurtu waxay nagu codsanayaan siino marka waxaanu dee haysanay inaan isku difaacno hadda marka laga weydiiyo cadeynta marka saasaan ugu diidnaan ku hayn marka gudoomiyaha arrimaha bulshada golaha guurtu waxaad leedahay warkii uu sheegay si qaldan uu sheego aan si sax ah aad ugu gudbisaan hayn ninkaasi suxufi ma hayn ha ma hayn ninkaasi suxufi Somaliland ma hayn arrintan ayaa muran badan ka dharisay baraha bulshada guud ahaan iyadoo habeenkii xalay ilaa maalinkii shalayna aad la isu weydiinayay wariyaha ama suxufiga diinta kristaanka fidiya ee ku nool magaalada Berbera taasi oo aan waxba ka jirin isla markaana uu cadeeyay isuduwaha wasaaradda diinta iyo qaafti inaanu arrinkaasi sidii loo sheegay ahayn